xildhibaan ka tirsan baarlamanka dalka iiran ayaa u geeryoday cudurka coronavirus-ka sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee dalkaasi taasoo muujinaysa sida uu cudurka coronavirus-ku ugu sii faafayay jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan. maxamed cali ramaas taski kaasoo asbuucii hore loo doortay xildhibaan ayaa la rumaysan yahay inuu u geeriyooday cudurka coronavirus-ka oo maalmo ka hor laga helay. xildhibaankan ayaa dhintay subaxnimadii hore ee shalay oo loo qaaday isbitaal kadib markii uu qabtay xanuun daran ka oo sababay cudurka coronavirus-ka. xildhibaankan ayaa noqonaya siyaasigii ugu horeeyay ee u geeriyooday cudurka coronavirus-ka, waxaana sidoo kale uu cudurkan ku dhacay madaxweyne ku-xigeenkii waddanka Iiraan iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka Iiraan ayaa sheegay in cudurkan uu geeriyoodeen ilaa 43 qof, halka sidoo kalena laga helay 593 kiis oo ku saabsan cudurka coronavirus-ka. wadamo badan oo dunida ku yaala ayaa iska joojiyay duulimaadkii ka imaanayay iyo kuwii u duulayay dalka Iiraan oo ah waddanka labaad ee sida weyn uu saameeyay cudurka coronavirus-ka marka laga reebo dalka Shiinaha oo ahaa dalkii markii hore uu cudurkan ka soo bilowday.